السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا جنال كينا دونيدا مانتا هدا إنو عصبتا فضلا سبسكراب صار جنباليلك نفرو سي كسو غاران وحالبا إنو صدقنا هالكان هدا إن رجوكتي هدا يانو كاغما العلينينا حانو كا عصانينا أصحابتا هالي اللبا كميدا إنا كسو حرتو باشان سايقنا يوقف فايديستان كسو دوادا قصة إنا مانتوها قصة يابلو عجيبة وحاجري ويل يرو أرضي مالين إساقو اسكولك جوغو kuna jiray xiisooyinka oo maalinka lahaa ayaa macalinka xiisadaas ku jiray wuxuu ka sheekeeyay faa'iidada ay leedahay salaada subax iyo ahmiyad u gaar ah inay leedahay wiilkii yaraa ayaa aad waxa u saameeyay hadalkii macalinka horay muusan u tukan jirin salaada subax markuu xaafadii ku laabtay ayuu wuxuu bilaabay inuu fikiro sidii ugu kici lahaa salaada subax ee berri xal kale muusan helin oo aan ka ahayn inuu soo jeedo habeenkii oo idil ilaa uu ka maqlo aadaanka salaada subax xaqiiqdiina wuu sameeyey fikirkiisa markuu maqlay aadaankii ayuu si degdeg ah isku soo diyaariyey laakiin mushkilo ayaa u soo baxday taasoo ah sidee ayuu ku aadayaa masjidku wuu ka fog yahay aabbihiisana ma aha mid salaada subax u soo kaca oo tukado mana awoodo keligiis inuu baxo wuxuu fadhiistay albaabka hortiisa isagoo ooyaya laakiin sikadiisa ayuu wuxuu u maqlay shanqar kaba ruux waddada maraya si dhaqsi ah ayuu albaabka u soo furay mise waa oday waayeel ah oo masjidka u socdo wuxuu eegay odaygii wuuna gartay odayga waa awoowaha saaxiibkiisa axmed ee jaarka ay yihiin wuxuu bilaabay wiilka inuu odayga daba kaco si tartiib ah isagoo doonaya inuusan fahmin si aan waalidkiisu u ogaanin wuxuu xaalka sida ahaadaba muddo kadib odaygii waayeelka ah wuu geeriyooday canugii ayaa ogaaday geeridiisa murugo weyn ayayna ku noqotay wiilka si daran ayuuna u ooyey ilaa ay la yaabeen waalidkiisu kadib aabbihiis ayaa ku yidhi maxaa sidaan oo dhan ugu ooyeysaa odaygaan ma uusan ahayn canug yar oo kugu da'ah oo aad wada ciyaari jirteen mana ahan ehel kuu dhow wiilkii ayaa aabbihiisa ugu jawaabay aabbow odaygaas wuxuu ii qabtay ama boosku iigu jiray adigoo i dhalay oo aabbahay ah iima aadan qaban xaqna waan u leeyahay inaan u ooyo ama aan ka tiiraanyoodo geeridiisa intaas kadib aabbihiisa aad ayuu u yaabay unan qarraxmay oo wuxuu aamini waayey hadalkan uu kula hadlay wiilkiisa misena wiilkii oo hadalkiisa sii wato ayaa wuxuu sii raaciyey uma ooynayo inaan la ciyaari jiray ama inuu ehel ii yahay waxaan u ooynayaa salaadda awgeed weliba wiilkii asagoo ilintu ay ka da'ayso ayuu misena aabbihiisa ku yidhi aabbow maxaad u tukan weysay salaadda subax oo maxaad u noqon weyday sida ninkaas oo kale iyo niman badan oo aan masjidka ku arko salaadda subax haddaba aabbihii isagoo yaaban ayaa wiilkiisa wuxuu ku yidhi xaggee ku soo aragtay nimanka aad sheegaysid wiilkii ayaa yidhi masaajidka intaas kadibna qisadii ayuu uga sheekeeyey aabbihiis aad bayna u saamaysay aabbihii qisadaas uu uga sheekeeyey wiilkiisa waxay maalinka ka dambeeyana waxay wada aadi jireen ay isku raaci jireen masaajidka oo ay ku soo oogi jireen salaad walbo ay ka mid tahay salaadda subax fadlan haddaa ka heshay qisadan cajiibka leh laayg saar siina faafi aad ayaad u mahadsan tahay.